السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وإني ورا سلامي انت كحيران كنال كان إن شاء الله وحان أرميهن إنو مرايين أو تيسان قيبتي دكتور كاسو قدبني قيب كلنا وصو شيقني وحي كجيران كنالكي كجيران مركا مهمة وحي إنو مريسي markaas ay ku dhamaato cunug lagu soo sheego xalgee u gudbaysaa xaaladee u gudbaysaa waxay ku dirayaan meesha ilmuhu tago oo xadaanada la dhaho Soomaali xadaana la dhahaa ma maleenayaan hadii wax kale lagu dhaxro Soomaali hoos igu soo qor insha Allah laakiin xadaana u garanaya meesha ilmaha lagu hayo yar intaan iskuul gaarin marka meeshaasay waxay u sameynayaan in waqtiga loo dheereeyo si waqti badan u joogo meeshaas waxay kaloo xaq u leeyahay in qof oo isaga khaas u ah haysa meeshaas oo macallimiinta maaha isaga mid gooni u ah oo isaga ku haysa meesha ku maaragtay kantaroosho oo wax ku barta taasina waa caawinaad wuxuu xaq u leeyahay ilmaha lokobogeyda in la geeyo oo isagana 40 adu hal saac 45 meelahaas waaya umaleynaya maalintii laakiin isbuucii sidoo ilmuhu maaragtay oo tiisanku ugu kala badan yahay ayay maaragtay loona siini karaa in la siiyo isbuucii laba mar ama isoo qabo isbuucii 3 mar oo si ugu kala badan yahay marka taas waxay ka caawinaysaa marka ilmihii sidoo u ciyaari lahaa ciyaartan ilmaha uu la ciyaari lahaa sidoo wax isku galgalin lahaa isoo qabo kaas marka waxay ka caawinaysaa muhiimadu ah afka hadalka sidoo u hadli lahaa taas ka caawinaysaa taas waxaan jeclaan lahaa in loo badiyo cunuga 2 isbuuci 2 mar la geeyo ilaa 3 mar la geeyo dhakhtarkana waa ka codsan kartaa dhakhtarkaaga tan labaad oo soo xigta iyaduna waa air therapy baa la dhahaa air therapy-gaasi iyadu waxay qabataa cunugii noloshiisa sidoo wax u qabsan lahaa tusaale ahaan cunugii wuxuu leeyahay isoo qabo maxaa la dhahaa jacketka ma xiran karo dharki ma xiran karo 3 sano jira ama 4 sano jira haduu 2 sano ma jiro waa la barayaa sidoo hadhow waxaan ugu weynaan marka soo kabahi u xiran lahaa dharkiisa u xiran lahaa sidoo saxankiisa uu maaragtay isku day nolosha waa iska dareemaysaa nolosha sidoo isku maamul lahaa isagu oo kaliya wax u qabsan lahaa baa la barayaa therapy baa la taas iyadoo sidoo kale waxay leedahay 45 ilaa 1 saac bay leedahay ay qofku uu haysanaya oo meesha ku jiraya oo cunug wax baraya ilmahana wax weyn baa labada iskaga bedelaya runtii muxuu caawinaad halkaas ka helaysa labada meelood marka tagtid meeshii isoo qabo xadaanadana waqti badan aad heshid qof khaasana loo sameeyo cunugii I hope hooyadana guriga ay ku caawiso sababtoo ah markuu guriga u yimaado in guriga ku sii caawiso hob cunugaasi inuu hore u soconayo una gadaal u soconayn ama meeshiisi una joogay aadu ilaahay idmo marka muhiimadu waxa waaye marka labadan waxay kala qabtaan midna waxa waaye sidoo u dhaqmi lahaa ama dadka ula dhaqmi lahaa ama wax u qabsan lahaa ama nolosha wax uu kaligi isagu u awoodi lahaa inuu wax qabsado midna waxay tahay midka afka ah oo barashada ah sidoo u hadli lahaa ila cunugi ma hadlaayo ciyaarka qayb aan hadlay oo tiisanka qaybna xogaa waa ka soo baxbaxa laakiin hadalkooda safiix ma aha markasta uu u baahan yahay cunugu labada markaan ka soo gudubno marka waxa jira marka kuwa iyagana hay'ada ah oo dadka guriga haday doonaan aad macnaha aad u geyn kartid guriga ugu geyn kartid xafiiskooda haduu ku dhow yahay ama magaalada ku yahay sida hooyadu chance ku leedahay hadii markaas aad awoodi karin ama meel fog kaaga jiraan oo kale iyagu ay ku imanayaan guriga kugu imanayaan ha ka cabsan hooyo hadihin dadkan ii imanaya adigu feejirno oo dadaal oo maalinta saacad bay kula joogaysaa haday ugu badato hadii ay
haddii ay micnaha saacad ay kugu badato saacadda aad ugu dhexda xiro hooy waxaa kaaga muhiimsan ilmahaaga wixii u qabanayso hore waan usoo sheegnay in dhexgalka cunuga maaragtay aadan micnaha aada guri ku haysan oo aad dhexgelinaysid shacabka ama dadka aad dhexgelinaysid dhexgalkaana wuxuu u sameynayaa wax weyn buu u sameynayaa ilmihii hadduu 3 sano iyo xoogaa jiro isboortiga soo qor u sheeg ootiisan inuu hayo kabacdina si maaragtay tartiiba uga macaamilayaan wuxuu ka qaadayaa firfircooni buu ka qaadayaa gabaraa su-aal waxay soo weydiisay hadda soo xasuustay wiilashay gabdhaha ayuu ku hor dhacaa wiilashay gabdhaha dhaqtaradu waxay dhahaan wiilashay u badan yihiin sababtoo ah wiilasha badan oo hadalku waa kasoo daahaa taasaa kalifaysa in wiilasha u bataan laakiin waxani waa wax maaragtay wiil iyo gabarba uu ku dhaco laakiin wiil iyo gabarba isboortiga wuu leeyahay waa geyn kartaa micnaha erolojiga badan wuu kasoo saarayaa cunugii wuxuu u noqonayaa dhexgalka bulshadu baranaya marka isboortiga waa waxyaalaha dhexgalka bulshada lagu barto iyo afkaba iga raali noqdo sorry marka taas markaan kasoo gudubno ilmihii oo xaaladaas caawinaada ah helaysid waxaa jirta marka inaad dhakhtaro aad u tagtid ku yaala caloosha cunuga cuntadiisa markalaan ka hadlayna laakiin dhakhtaro cuntada maaragtay dhakhtarka caloosha wuxuu cunugaaga irlaji ku qabo cuntadu ku qabo irlaji cuntaduna maaragtay haddii irlaji caloosha ay kaga bahalkoodana dhib bay u keenaysaa marka taas dhakhtarka waxaa kala hadlaysaa ilmaha kala hadlaysaa ama kii kugu soo go-aamiya kaga hadlaysaa waxaan usoo wareegaynaa qeybta autismka wuxuu leeyahay xirooyin buu leeyahay oo maaragtay ilmaha la geeyo oo wax lagu micnaha ilmaha ay iyagu hadalka isagana barayaan maaragtay oo aad geynaysid ama iyagu ay ku imanayaan siba markaa xaaladda qofkii ku xirantahay si u kala fududahay marka taasi waxay leedahay marka waxaa jirta marka hooyooyinka waxaan ka codsanayaa inay tagaan meelaha seminaarka lagu sameeyo autismka waa hooyada autismka cunugeedu qaba hooyada kale ma khuseeyo hooyada ilmaheedu caadiga yahay ma khuseeyo ilmaha autismka qaba meelaha lagu bixiyo seminaarka waa inay tagaan waa inaad tagtaa wax badan baa ka faa'iideysaa wax badan oo ka indhaxirnaba ka bahalkeenaysaa muxuu ahaa waxaa lagu tusayaa ilmo noloshii guul ka gaaray adiga marka hami baa yeelanaysaa runtii laakiin haddaad guri isku soo xirtid aad cidna la sheekaysan runtii hami ma yeelanaysid hamiga maca adigu aad lahayd aa kaasii lumaysa marka waxay dhiirigelin bay kuusii gelinaysaa waxay dhiirigelin kuusii gelinaysaa meelaha markaad tagtid tag seminaarkaaga soo qaado buugaga akhri muxuu ahaa luuqadda markaa wadankaad joogtid ku akhri haddaan adigu aqoon hooyadu aqoon aabuhu yaqaano luuqadda aabaha akhri dheh ifahansii waxan dheh hal mar nusu saac 10 daqiiqo aad wax akhrisataan ama video daawataan oo dhegeysataan baa kaaga muhiimsan aan ilmahaaga kula dhaqantid marka insha Allah waxaan ka hadli doonaa qeybaha soo xiga tartiib baan maaragtay qeyb baan soo qaadanaynaa qofkii su'aal qaba insha Allah wuxuu igu soo qori karaa hoos comment-kiska igu soo qori karaa su'aal waa i weydiin kartaan aniga hadeer in muddo baan ku jiray waxaan waana raadiyo waan wax wali wax aan hadda aan ku dhihi karo waan dhameeyay ama guushiisa waan gaaray ma jirto laakiin waan raadiyaa wali aqoon kala ii sii dhiman marka waxaan sidii inta taqaanid walaalahay Soomaaliyeed uga faa'iiday haddii u baahan yihiin khasab u baahan waayo sababtoo ah anigu markaan waxaan raadinayay waxay igu qaadatay waqti badan wax i fahansiiya iyo dadaan luuqadii kala garanayn baa jirta marka Soomaali marka qofka ugu sharaxaysa way ka sii fududahay insha Allah khayr baa inii rajeynaya iyo barwaaqo iyo bashbash like subscribe on comics insha Allah